marka koobaad waxa inoo muhiim ah inaynu ka war doono amba aynu si fiican uga warhayno caafimaadka ay ku jiraan iyo nolosha ay ku sugayeen xoolaheena maadaama ay nolosheena boqolkiiba boqol ku tiirsan tahay xoolaha nool adduunyada kale dal kastaaba waxa uu ku faanaa waxa uu leeyahay wad aragtay dalalka carabta inta badan waxa ay ku faanaan iyagoo leh waxaanu haysanaa the black diamond iyagoo uga jeeda petrol inagu haddii aan wax ku faanayno waxaanu ku faani karnaa inaynu dhahno the life diamond amba diamondkii noola waana xoolaheena nool intaa markaan ka tago waxaan rabaa fariinan hawadoo mariyo dhammaan inta danaysa daryeelka iyo daweynta xoolaha iyo xoolo dhaqatada labadaba wasaaradda xanaanada xooluhu saad la socotaan waxay kala dirtaa mar walba sanad kasta 2 jeer waxay dirtaa tiimam ama kooxahaas waxay tagaan dhulka ay ku nool yihiin xooluhu deedna waxay inta badan isku daydaa dhakhaatiirta baxda inay xakameeyaan si aan xanuunadaasi inoogu sii faafin waxaanu ka hadli doonaa waxa la yiraahdo early morning grazing arooriyada hore inaan xoolaha la sii deynin oo aan loo sii deyn inay daaqaan laakiin la barqiyo xilligan oo kale sababta saa u leeyahay wax kale maaha xoolaha haddii xilli hore la sii daayo waxa ay halis u yihiin inuu neefku cuno oo uu daaqo nooc ka mid ah cayayaanka kuwaas oo dhakada sare ee doogga iyo cawska fuula sababtuna ay tahay inay sayaxa iyo qabowga dharabka carabka la raacaan ku qoysteen deedna neefka markaad sii deyso xilli hore waxa uu markaaba afka la doonanayaa oo afka la gelaya ama beedkiisii ama cayayaanka laftiisii gaar ahaan gooryoonada qaar noocyo ka mid ah ayaa waxay soo fadhiistaan dhakada sare ee cawska deedna neefka markaad 6 subaxnimo sii deyso wuxuu markaaba afka ku dhufanayaa beedkaasina hadhow wuxuu sababayaa inuu markaaba caloosha neefka ku tarmo oo ku dilaaco deedna neefku taransan waayo oo dawooyinku waxba u tari waayaan cuntaduna waxba u tari weydo inta badan marka in arrinkan laga digtoonaado ayaa muhiim ah deedna xoolaha waxaad sii deynaysaa waad yara barqimaysaa 8 oo kale ayaad sii deyn kartaa marka aad yara qabato ee cayayaankaasi doogga hoostiisa ay galaan way dhakada sare cadceedda qabanayso cadceedda ka dhuumanayna ka yaacayaan arrinka saddexaad ee yaraale xusuusinteedu waxa weeyaan waxa la yiraahdo boqoqa amba si Soomaalidu u taqaano daratada blood baa la yiraahdaa luqadda qalaad wadbiro xooluhu waxa ay cunaan xilligan oo kale doog fara badan oo igana ama safil shabaxa doogga quruxda badan marka ay cunaan xooluhu isagoo aqli malaha xooluhu iyo mag yaqaan iska jooji wad aragtay laakiin neefku wadaya waxaad arkaysaa neefkiyo qurux badan oo gashibax walaho ishiisu aad u fiican tahay inuu markaaba dhinto xitaa birsoli weydo oo aad la gaariba weydo deedna si aanay taasi kugu dhicin waxa aad u baahan tahay inaad xadido mar walba neefku inta uu cunayo oo aad ogaato adigoo sameyn kara maarayna fara badan xitaa waxaad sameyn kartaa waad ka soo celin kartaa markay daaqayaan oo kale amba meel kale geyn kartaa way isla xilligan oo kale waxa jira wax la yiraahdo opportunity disease amba opportunity bacteria amba opportunity waxa jira neefkii maadaama awoodiisu yaraatay oo immunity-giisa iyo difaaciisa hoos u dhacay waxa iyana mar walba la lamaan bacteria ama virus ama fungi ama protozoa iyo wixii la halmaala oo ka faa'iideysanaya xaaladda daran ee neefku galay okay 4 ama 5 waxaanu oran karnaa waxa jira wax la yiraahdo epidemic disease amba xanuunada loo yaqaan degal fadhiga ee markasta dalkeena ka dilaaca aanu garan karno sababka iyo sosonka iyo wixii la halmaala ay ka mid yihiin kuwaasina xilliyadan oo kale waa la arkaa waana dilaacaan wasaaraduna way u toog haysaa oo aad bay hawsha ugu horeysa